waa maxay sababaha siyaadin kara ama qofka u nugleyn kara khatarta imaanshaha kansarka noocyadiisa kala duwan insha Allah cashirkeena maanta ayaan ku sharxi doonaa qaladaadka bulshadeena ku badan kuwaas oo u nugleyn kara kansarka noocyadiisa kala duwan sida arkaysaa daraasad laga sameeyay dalka Mareykanka ayaa waxa lagu ogaaday in ay jiraan qaladaad badan oo bulshada ay sameeyaan kuwaas oo u nugleeya kansarka marka ma ahan daraasadan laga sameeyay wadankeena balse khatarahan badan wax bulshada ay ka sameeyeen ama u nugleyn kara inkastoo kala duwanaansho ay jirto dhanka u nuglaanshaha يعني xanuunada ay ku soo arkaysaan waa isticmaalka waxyaabahan ka samaysan tubaakada sida sigaarka iyo wax la mid ah maadaama ay ku jiraan in ka badan 70 maado oo kala duwan oo walxa kiimikeed ah kuwaas oo keenaya ama sababaya suurtina ka arkaysaan ama qofku nugleenayo inuu ku yimaado kansarka marka dadka badanaa sigaarka aad ku cabo waa dadka ugu badan ee kansar ku yimaada sida hadii graafka ku arkaysaan si la mid ah qatartan waxa ka agdhowsa arkaysaan passive smoking waxa la oo hadii badanaa qof agtaada sigaar uu ku cabo adigana halkaas aad fadhiso ama qof gurigaada jooga ha noqdo qof diriskaada ama qof meel ka shaqeysay wax la mid ah yani hadii badanaa uu sigaarka isticmaalo yani qiicaas ku soo gudbaayo si la mid ah qatartan ama u dhow ayuu ku saameyn karaa kaliya qofka inuu cabaaya balse qiicadu sidaan oo kale sawirka ka arkaysan qofka aad u soo gaarayo yani saameyn weyn ay ku yeelan kartaa qodobka labaad ee qofku u nugleyn karaa waa cayilka zaa'idka miisaanka badan maadaama jirka inflammation fara badan oo ku keenayo oo qalqalinayo sida arkaysaan dheecaanada qaar arrinkan wuxuu qofku nugleynaysaa maanshaha kansarka marka miisaankaada aad u badan yahay waxa fiican in aad ka yareyso qodob koowaadna waxaan soo sheegnay hadii sigaar cabtina iska joojiso hadii aadan cabinna qof inuu agtaada ku cabo aadan ogolaan ama ka fogaato qodobka saddexaad waa isticmaalka khamrada wax la mid ah bulshadeena aad ugu badno balse waa arrin dhaawacayso sida hortiina ka arkaysaan hidisidayaasheena taasoo ugu dambeyn keenayso in unugyadii controlka ay ka baxaan sidaasna ay isku badiyaan kadibna uu kansarka yimaado marka alcoholka ama khamrada kansarka oo keeno waa midka beerka ku dhaca maadaama alcoholka ama khamrada ay waxyeelayso beerka ugu dambeyn caabuqaas beerka ku imaanaya waxa ka dhalan kara kansarka nooca loo yaqaan hepatocellular carcinoma ama HCC sida hortiina ka arkaysaan sidoo kale khatarta xigta arkaysaan qofku nugleyn karta waa qorraxda haddii si joogto ah jirkaada qorrax aad u kulul kugu dhacda maalin kasta oo qorraxda kulul badanaa wixii barqada ka dambeeyo ilaa galabta wixii ka horeeyo yani qorraxdaas yani caafimaad ahaan jirka inay ku dhacdo ma wanaagsan oo xitaa dadka vitamin D qorraxda ka helo waxa lagu taliyaa subax aroortii ama galabta casr liiqa inay qorraxda yani ay fariistaan hadii ay rabaan inay jirkooda vitamin D soo u dhaliyo jirka yani hadii qorraxda qofka oo rabo inay jirkiisa ku dhacdo يعني sidaas ay caafimaad badan balse qorraxda barqadii subax wixii ka dambeeyo ilaa galabka inta u dhaxeeyo xilliga duhurkii wax la mid ah qorraxdaas caafimaad ahaan wanaagsan qofku inuu socdo ama inuu fariisto saacado badan ma fiicno oo ilayskaas ama kuleelkaas qorraxda wuxuu dhaawici karaa unugyada maqaarka sida hortiina ka arkaysaan arrinkaasna waxaa ka dhalan kara kansarka ku yimaada maqaarka ee loo yaqaan melanoma sidoo kale waxyaabaha u nugleeya khatarta kansarka qofku waxa ka mid ah haddii cuntooyinkan gisacadaysan iyo wax la mid ah sida hortiina ka arkaysaan qofka aad u isticmaalo misna ay yar tahay isticmaalkiisa qudaarta markastoo isticmaalka qudaarta cagaaran sida hortiina ka arkaysaan wax la mid ah ay aad u yar tahay waa markastoo u nuglaato noocyada kala duwan ee kansarka cuntooyinkan gisacadaysanna si la mid ah xiriir xoogan ayaa kala dhaxeeya imaanshaha kansarka ama qofku ay u nugleeyaan sida kansarkan ku dhaca mandhiciraha qaybta hoose midka caloosha ku dhaca midka tubadan dheer oo esophaguska loo yaqaan ku dhaca wax la mid sidoo kale infekshanada qaar qofka waxay u nugleeyaan kansarka oo tusaale fayruusyadan ku dhaca ama saameeyo beerka oo caabuq keena sida hepatitis B ga hepatitis C haba ugu sii badnaada hepatitis C ga يعني wuxuu badanaa u gudbi karaa ama u gudbaa haddii aan la controlin kansar ku dhaca beerka ee loo yaqaan hepatocellular carcinoma sidoo kale qodobka ugu dambeeyo waa physical inactivity oo ah qofka in jimicsigiisa ama dhaqdhaqaaqiisa uu yar yahay oo maalinta ugu yaraan 30 daqiiqo ama hal saac qofka uusan socon arkaas waxay keenaysaa in miisaanka qofka ziyaado hormoonada qalqalaan oo qodobka hore soo ku soo sheegnay miisaankaas aad ku ziyaadayo jirka yani inflammation wax la mid ah aad ugu nuglaanaya sida hortiina ka arkaysaa oo ma aha wax aad u sababa balse uu u nuglaanaya qofka mar kastoo jimicsigaada yar yahay
cunto qaadashada ay badan tahay qaladaadka aan soo sheegno kuwa ka midna aad samaynaysid waxaa u nuglaan kartaa noocyadii kala duwan ee kansarka. Marka si guud graafkan wuxuu sharxayaa daraasad laga sameeyay dalka Mareykanka, balse waa qaladaad bulshada badanaa ay sameeyaan oo la sixi karo, oo qofka qorraxda inuu xilliyada kulul yacni uu mar walba fariista ama taga ama uu joogo iyo wax lamid ah uu iska dhaafi karaa. cuntooyinkan gasacdiisa wax lamid ah uu iska dhaafi karaa qofka. jimicsi qofku uu sameyn karaa haddii infectionada beerka wax lamid ah ku dhacay jirka uu iska daaweyn karaa qofka, sida cagaarshowga ama hepatitis B hepatitis C wax lamid ah. sidoo kale qofka khamrada wax lamid ah uu iska joojin karaa. sigaarka inuu asaga cabo ama lagu ag cabo wax lamid ah qofka uu ka hortagi karaa. miisaankiisa haddii uu badan yahay qofku waa uu yareyn karaa. marka waxaan oo dhan waa qodobo ama waxyaabo la kontrooli karo haddii uu qofku uu dadaalo ama uu ka hortago. marka waa qaladaad bulshada ay sameynayaan waxa ugu badan inuu nugleeyahay imaanshaha kansarka. ina fahanteen ayaan rajeynayaa. asalaamu calaykum.